aragu ma ahan indhaha ee waa qalbiga. Dadka qaar waxaa ka dhex daaran caawa cashada ma digiraa hooyo aa ka dhex daaran. maanta waxaan rabnaa nolosheena inaan idin tusno dadka aragga naafada ka ah. dadka waxay aaminsan yihiin inaysan waxba qaban karin, laakiin sidaas maaha. dadka aragga naafada ka ah waxay asaageen qaban karaan, ka badana qaban karnaa. magacaygu waa Amal Cabdulaahi Axmed. maanta waxaan idin tusayaa sida aan ku wajaho nolol maalmeedkayga. waxaan ahay gabar aragga naafada ka ah. waa mahadsan tahay. xafiiskayga isla imaanay waa kaleena marka. assalaamu calaykum. subax wanaagsan Yuusuf. haye warkiisii maanta waa iga soo hormartay. maanta waxaa sameynayaa routine ama nolol maalmeedkeena dadka aragga la. maanta waxaa go'aansaday inaan routine sameeyo. daily routine-kayga sameynaya. xataa fariin waxaa u dirayaa Amal maanta waa ujeedin daily routine sameynaysaa sida dadka caadiga ah oo kale waxay sameynaysaa daily routine. marka taas waxay cadeynaysaa qofka naafada inuu wax walba oo awoodo oo sameyn karo. waa isweydiineysaan xafiiskan waxyaabaha unique u ah. midkan hortiina ka muuqdo waa printerkan emboser la yiraahdaa. waa printer ee dadka aragga naafada ka ah warqadaha loogu daawaco, warqadahana looga dhigo braille. waxaa braille loo daawacaa dadka jaamacadaha dhigto aragga naafada ka ah. sidoo kale markii uu training jiro si ay dadka naafada ula socdaan trainingkaas iyo mowduucyada laga hadlayo farta braille loogu soo daawacaa. marka printerkan waxyaabo badan u qabtaa dadka aragga naafada ka ah. waa adinka halka ka isticmaashaan printer caadiya oo warqadaha lagu daawaco. anaga printerkana isticmaalnaa. marka waa ka xaruntan waa xarunta ururka dhalinyarada aragga naafada ka ah. anigana waxaa ka tirsanahay ururka dhalinyarada aragga naafada ka ah u dhan waxa ay cod u tahay dhalinyarada naafada, khaasatan dhalinyarada aragga naafada ka ah. training badanaa sameynay oo ay ka mid tahay digital marketingka iyo sidoo kale call centerka iyo waxyaabo kala duwan. hadda waxaan soo fariistay kursigayga. computerkan desktopka ah oo horyaalo. waxaa isweydiineysaan sidee Amal ay isticmaalaysaa computerka. laakiin wax yar dhegeysta ama aniga wax dhageystay daawada. tusaale computerka waxaa igu xiran cod la yiraahdo JAWS software. waad maqlaysaan. aniga riwaayadaha aada u jeclahay Amal ahaan. weliba waxaa ka mid ahay dadka riwaayadaha sameeya oo aragga naafada ka ah. beejkeena waxaa soo dhignaa u dhan. insha Allah waxaan rajeynayaa in beejkeena aad follow dhahdaan si aad ula socotaan wacyigelinada iyo riwaayadaha ay soo dhigaan iyo filmaanta u dhan ay soo dhigaan si aad wax badan ugu barataan nolosha dadka aragga naafada ka ah.
waxay ka shidan tahay cuntada wadaniga dadka qaar waxaa ka dhex daaran caawa cashada ma digiraa hooyo aa ka dhex daaran marka kan waa bunkii inta bun jecel daangadii sidoo kale cambuulada waatan I hope inaad ku enjoy gareynaysaan anaga dhan waan ku enjoy gareynaynaa maasha allah waana ku faraxsanahay maalmeedkayga halkaas oo kusoo gabagabeynayaa asxaabteeda waqti la qaadanaya asxaabteeda in joogto guys maxaa leedihiin habeen wanaagsan maasha allah aad u mahadsantihiin This is me, and this is my Somalia. In the next segment, me, Sam, and Hidayah will explore the culture hub of Mogadishu in the old city, Hamarweyne. After that, we will have an exclusive interview with the famous singer and actor Dayah Dalnurshe.